وقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة من سوء الإدارة وفساد النظم وغياب عود محمد بن عوف ayaa maanta ku dhawaaqay hadal ay sugayeen muddo dheer shacabka reer Suudaan waxaana uu sheegay in xilkii laga qaaday madaxweynihii wadankaasi Umar Xasan al-Bashir isla markaasina lagu xiray goob ammaan ah. Bin Cawf waxa uu isku hayay xilalka awoodda badan ee wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalkaasi. waxa uu kamid ahaa shakhsiyaadka farakuturiska ee kalsoonida buuxda uu ku qabay madaxweyne Umar Xasan al-Bashir. bishii Febraayo xilli ay sii xoogeysanayeen mudaharaadada ka dhanka ah ayaa madaxtooyada Suudaan sheegtay in wasiirka gaashaandhigga uu magacowday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalkaasi isla markaasna uu sii hayn doono wasaaradda gaashaandhigga. Umar Xasan al-Bashir ayaa 2 maalmood ka hor xilligaasi ku soo rogay dalka xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo sanad ah. waxa uu dhisay dawlad ku meel gaar ah oo ay ku jiraan 3 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddiisii hore oo kala ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda. sidoo kale al-Bashir barsaabadii goboladaasi ku bedelay saraakiil military ah. Cawad Maxamed oo loo yaqaan Cawad bin Cawf waxa markaasi loo arkayay qofka kaliya ee al-Bashir ku kalsoon yahay isla markaasina difaaci kara hadii inqilaab kaga yimaado dhinaca ciidamada dawladdiisa. haddaba waa kuma Cawad bin Cawf? Bin Cawf waxa uu bilowgii kontonayadii ku dhashay tuulada qura oo ka tirsan degmada Waad Maliki. waxa uu galay kuliyadii ciidamada waxaana uu tababar military ku tagay dalka Masar oo ku soo takhasusay madaafiicda. markii dambana waxa uu macallin ka noqday kuliyadda saraakiisha ee dawladda Suudaan. intii uu ku jiray shaqada ciidamada waxa uu noqday taliyaha sirdoonka militariga ee dalka Suudaan iyo taliye ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ee Suudaan. waxa uu door weyn ka qaatay isku soo dhaweyntii Suudaan iyo Eritrea markii uu madaxda ka ahaa guddigii isu soo dhaweynta nabadgelyada labada dal. markii uu shaqada ka fadhiistay 2010 ayaa loo magacaabay safiir ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxaana uu noqday agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka ee wasaaradda arrimaha dibadda. kadib waxa loo bedelay inuu noqdo qunsulka guud ee safaaradda Suudaan ay ku leedahay dalka Masar caasimadiisa Qaahira. markii dambana waxa uu noqday danjiraha u fadhiya Suudaan dalka Cumaan. bishii Agost 2015 ayuu madaxweynaha Suudaan digreeto madaxweyne uu soo saaray uu ku magacaabay Cawad Maxamed bin Cawf inuu noqdo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Suudaan. waxa la sheegay intii uu xilkaasi hayay inay ciidamada Suudaan ku tallaabsadeen horumar dhinaca saanada militariga gaar ahaan sawaariikhda dheerisa iyo madaafiicda. inkastoo dadka reer Suudaan ay dalbanayeen in ciidamada dalkooda ee jooga Yemen in la soo celiyo ayuu maruu ka hadlayay ciidamada Suudaan ee jooga dalka Yemen. waxa uu Cawad Maxamed bin Cawf uu ku nuuxnuuxsaday inay xukuumaddiisa aanay marnaba ka goonayn inay soo celiyaan ciidamada ka jooga dalka Yemen qaybna ay ka yihiin xulafada ay hogaamiyaan Sacuudiga iyo wadanka Imaaraadka Carabtu. waxa uu shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Khartoum uu ku sheegay joogista ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ay joogaan dalka Yemen inay tahay waajibaad akhlaaqi ah oo saaran ciidamadaasi. dhanka kale guddiga qaramada midoobay xil saartay xasuuqi Darfur ayaa magaciisa ku soo daray liiska saraakiisha lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen xasuuqi ka dhacay Darfur. dhanka kale dawladda Mareykanka iyo Yurub ayaa iyaguna ku daray liiska saraakiisha loo haysto xasuuqi Darfur. Bin Cawf waxa uu bedelay General Bakar Xasan Saalax oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee al-Bashir. waad ku mahadsantahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha Showda Media. subscribe, like na saar, siina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada baraha bulshada. mahadsan.